بسم الله ninkan ku muuqda waa nin Kenyan ah wuxuu fariin cabsi leh u dirayaa guud ahaan shacabweynaha ku nool dalkan wuxuu yiri group ay tuugada u socdaan raxan afarta beenajaho ay kaaga iimaanayaan haddaba ma sitaan hubka sida baangada ama toorida laakiin hubka daran ay wataan maalin walba tuugo hor leh ma maqleena waxa ku saabsan guud ahaan muuqaalkaasi ayaan kula wadaagi doonaa muuqaalka xiga qaab nuucee ay kaga falceliyeen hadii ahaan shacabka Kenyaanka ama kuwa Soomaalida sicir bararka ku imaaday hadii tahay dhanka shiraalka iyo hadii tahay maciishada nolosha inteeda kale bal ku saabsan guud ahaan muuqaalkaasna waa kula wadaagi doonaa muuqaalka xiga muuqaalkan waxa laga soo duubay dad sharci la'aan ah oo waliba ka cararaya booliska dabaqadan iska soo tuuraya waxa Soomaali saqeybmiye ka tahay bal ku saabsan guud ahaan muuqaaladaas ayaan kula wadaagi doonaa inta aan soo guda galin hadii ay satay booqashadaadii ugu horeysay waxaan si xushmadi ku dhigantahay kaga codsanaa walaal inaad maanta nagu soo biirtaan channelkana subscribe inoo saartaan sidoo kale waxaan si xushmadi ku dhigantahay kaga codsanayaa qof walba oo muuqaalka daawanaya bal inuu laagta iyo sharti soo keen dartaan si guud ahaan muuqaalkeenu u gaaro bulshada Soomaaliyeed soo dhawaada saaxiibayaal ninkan ku muuqda waxa uu dhashay dalkan Kenya wuxuu fariin cabsi leh hawada u marinayaa guud ahaan shacabweynaha ku nool dalkan wuxuu yiri waxa soo baxay tuugo waliba raxan group u socdo inta badan waxay ka faa'iideystaan meelaha lagu qabanayo mudaharaadyada sida uu ogsoonahay dalka wuxuu ku jira u diyaar garowga doorashada ee nagu soo fooda leh sanadka 2027 mucaaradkii inta badan wuxuu tagaa guud ahaan gobolada dalka Kenya muxaafadkii wuxuu tagayaa guud ahaan gobolada dalka Kenya halka waxa isugu soo baxayo taageeraha haduu yahay mucaaradka halka waxa kaga faa'iideysanaya raggan tuugada ah ee isa soo bixistay maxay wataan ay kugu soo weerari karaan burisyo halkan ay ugu wada jiraan afarta beenajaho waa lagu soo weydeysanaya waana laga hor imaanaya adigu daacad ayaa tahay hadaa tahay taageero mucaaradka hadaa tahay taageero dawladda intaba raggan way ku mashimayaan ayagoo iska dhigaya kuwa sameynaya xilliga mudaharaadyo ama soo dhaweyn wixii ahaataba buriska ay ku qaadanayaan hadii aad isku dhajiso telefonkana madaxa ay ka burburinayaan telefonkana way ka qaadanayaan ninkan hadaladiisa waxa kamid ah hadii ay dhacdo in raggaasi aad shirqoolkooda ku dhacdo dibintooda ku dhacdo afarta beenajaha kaaga yimaadaan ha iswaalid waxa laga yaabaa da'daadu inay tahay 18 sano 19 sano 17 sano 20 sano iyo wax la mid ah dunida ku cusub tahay wali raggan go'aan ay soo gaareen markii ay soo aadeen halkan waliba burisada ay soo qaadanayeen inay telefonkaaga qaataan hadad lacag haysato qaataan hadii aad iswaashaan ee nafta ku dhaafsiyaan si naftaada aadan u weyn u kula ninkan hadii aad dibinkaas ina ku dhacdo fadlan ha iswaalin isdhul dhig maxaad u baahantiin telefoon maxaad u baahantiin lacag intaba shalamadan haysan maantana waad shaqaysan kartaa hadii fariintaas oo u diray ninkan dadkiisa Kenyaanka aniga ii diidayo inaan kaga digo walaalahayga Soomaaliyeed ee suuragal tahay xilliga ee suuragal tahay madaxdaas ama mucaaradku waxay ahaadaanba ay soo booqdaan xaafadisli ama guud ahaan gobolada dalka ee Soomaalidu ku badan tahay ayagoo isla halka taga kana qayb qaata haday tahay soo dhaweynta marka qofka aad taageersan tihiin ee aad soo dhaweynaysiin haday tahay mucaaradka iyo haday tahay muxaafadka ninkuu digay kuma dilin hadii ay dhacdo fadlan lagu qabtaa iska dhib madax adeega halka iska dhig dantaada caafimaadkaaga iyo noloshaada ayaa ku jirta raggan wax isxaan ama naxariis ah kuma sameey doonaan hadii gacanta kugu dhigaan hadii kale Soomaali waxay tiraahdaa banaankiis mare maradiisa geed ma qabsatay telefishinka ka fiirsan leh wixii warar ah news akhbaar ah meeshaada yes ka dheh laakiin hay iskuba aadinba muuqaalka xiga qaab nuucee ah ay shacabweynaha ku nool dalka Kenya hadii ahaan lahayd Kenyaanka hadii ahaan Soomaalida ay kaga falceliyeen sicir bararka ku imaaday hadii tahay dhanka shidaalka iyo hadii tahay dhanka maciishada inteeda kale haddaba waxaan idin la wadaagi doonaa shidaalka sarokac uu sameeyay dadka inta badan u kala goosha gobolada dalka Kenya hadii aad Mandera hadii tahay Wajeer dadka qaar ayaa gawaarida basaska raaca qaarkoodna diyaarad ayay u raacaan sida caadiga ah Mandera haddaba sicir bar intee leeg
qiimo kor intee leeg ayaa basaskani ku yimid diyaaradayna ku yimid bal mid kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa sheekadan inoo dhigaya si aad adigana haddii ku qorsheysan yahay safar aad lacagta tikitka aad u sii diyaar garoodid aad sii qorsheysatidba bal waa kan muuqaalkiisa ayro daawan dhibaatadii Iran iyo Mareykanka waana taabatay waana haysaa diyaaradihii Wajeer ilaa iyo Nairobi soo kala gooshi jiray ee dadka rakaabka shacabka ay raaci jireen waxaa lagu goosan jiray tikradooda mar hore 10,000 ilaa 9,000 lagu goosan jiray isbuucii la soo dhaafay waxaa laga dhigay tikitka go iyo back 30,000 oo lacag Kenya ah oo go qofkii Nairobi aadayo oo bixinayo 15,000 oo lacag Kenya ah baasaskii wadadaasi haayay Nairobi ilaa Wajeer sida ugu dhex shaqeynayay mar hore waxa lagu raaci jiray lacag cadadkeeda ay tahay 2,800 ilaa 3,000 oo lacag Kenya ah ayaa lagu raaci jiray isbuucii la soo dhaafay kor ayay u qaadeen waxay ka dhigeen 4,500 xalay xidana shidaalka waa lagu daray dieselka waxa lagu daray 40 shilin oo shilinka dalka ah ayaa lagu daray wuxuu noqon doonaa 240 iyo gogo inuu noqon doonaa jecelahay halka petrolkana 28 lagu daray marka xaaladdu wax hagaagahaya malaha waa ka sii daraysa xaaladda waxa laga yaabaa maalmaha soo socdo diyaaradaha Wajeer iyo Nairobi isku kala goosho in qiimaha lagu raacay ay gaarto ilaa iyo 19,000 oo lacag Kenya ah inay gaarto halka baasaskana 6,000 oo lacag Kenya lagu raaci doono shaqsigii xaaladdu way ka sii daraysaa dagaalkan Iran iyo Mareykanka u dhaxeeyo Strait of Hormuz kan xiran oo shidaalka soo mari la yahay wadamada saameyntooda ay si weyn u gaari doonto dadka arrimaha dagaalaha saameynta ka dhasha falanqeeyo mar hore waxay sheegeen Afrika inay aad ugu badan doonto saameynta waan dareemahaynaa maanta waan dareemahaynaa waa dul taaganahay waqtiga la sheegay warwaani salaam wa alaykum salaam waa wareey maanta sheekadu halkaas ay maraysaa dieselki iyo petrolki waa isku qiimo maanta marka hore dieselka loo baxsan jiray oo gawaarida dadweynaha dieselka lagu shubay hadda waa isku lacag maxaa la sameeynaya marka waxay noqonaysaa inaan meel loo safrin cidna maxay ahayd waxba qabsanin meel la aadin hadda sheekadu daysantaa markan gawaarida waxa bakin baa la iska wada dhigi doona sheekadu meel xun bay maraysaa ilaahay naga qaboojiyo waa alla ilaahay xaaladuhu waa cabsi waxa laga baqayaa gawaari badan in la geli doono gabi ahaanba la iska damin doono baakinada in lagu dayn doono guud ahaan gawaarida kadib sarokaca qaaliga ah ee shidaalka ku yimid nolosha inteeda kalena qayb ay ka noqotay sarokaca iyo sicir bararka intaba hadaba dadka ka falceliyay waxa kamida ninkan Kenyaanka oo waliba si fanni ah kaga falceliyay wuxuu yiri waxaan la yaabay ayuu yiri haddii shidaalka dalka Kenya uu kaco wax walba way kacayaan raashinkii wuu kacayaa oo gaar raaci wuu kacayaa oo xanaaqi wuu kacayaa oo qorraxda kuleelkeeda wuu kacayaa oo bareesharkii wuu kacayaa oo xataa haddii aad tiri xaaskaaga kaalay oo ina kaxaysirta ina geey way kacaysaa hal shay ayuu ku tilmaamay gabi ahaanba inay suuragal ahayn inuu kaco kaasna wuxuu ku sheegay mushaaraadka ay qaataan shaqaalaha hadduu raashinka kaco mushaarka shaqaalaha ma kaco wuxuu yiri qorraxda kuleelkeeda xataa way kacaysaa kuleelkeeda ayaaba badanaya xilliga oo kaco shidaalka ilaa wala lugeynaa gaari cid awoodaa ma laha wuxuu yiri bareesharkii ayaa kacaya oo xanaaqi qofka ayaa kacaya xataa caayda way kacaysaa uu yiri caayda lagu caayin lahaa xataa way kacaysaa haddii aad xaaskaaga gurigaaga inta timaado tiraad kaalay ina kaxeeyo sariirta ina geey iyada xataa ma ogolo way kacaysaa halka shay wuxuu ku tilmaamay shaqaalaha in mushaarkooda gabi ahaanba uusan kacin waa fariin uu u dirayo guud ahaan dadka loo shaqeeyo in ayagana hoos u eegaan sheekadu fanni ayay u eg tahay laakiin xaqiiq waa fariin uu u gudbinayo madaxdaas in ay hoos u eegaan dadka masaakiinta ah ee danta yar ee mushaarka yar ku shaqeynaya haddana sicir bararka ku yimid hadday tahay dhanka raashinka hadday tahay dhanka guryaha hadday tahay dhanka shidaalka waa fariin dadka inta badan si qosol u fahmayaan laakiin ay yar tahay si dhaba dad u fahmi kara muuqaalka xiga muuqaalkan waxaa laga soo duubay dad sharci la'aan ah oo waliba ceersanayaan booliska naftooda halis ayay gelinayaan
waa muuqaal argagax leh cabsi ah daawashadiisu taa mid muruga wadataba si ay kaga badbaadaan booliskaas ay naftooda halis u gelinayeen waliba dabaq dhowr biyaana ah isaga soo tuurayaan mid kamida waxaan isri malaha dhabarka ayuu ka jabay waa magaalada Durban ee dalka South Africa muddooyinkii ugu dambeysay dowladda dalka South Africa waxay ku dhawaaqday cid alaale cidii sharci la'aan ah in dalka laga musaafirin doono markii hore dowladda dalka South Africa ayaa waxay ahayd dowlad wanaagsan shacabkeeduna wuxuu ahaa mid aad u xun Soomaali badan halka inooga maqan tahay haddana dowladdii ayuu amarkan ka soo furay waxaa jira ururo shisheeyaha necab ee dalka South Africa ku nool kuwaasoo qayb libaax la ka qaadanayo soo qabqabashada dadka sharci la'aanta booliskana u fududeynaya dabaqan aad arkaysaan dadka degan ayaa waxay tilmaamayaan booliska halkan ayuu ku jira ayagana dabaq iska soo tuuray South Africa adoo jooga hadda dabaq iska soo tuurtay ee dhabarka ka jabtay sidii wiilkaas oo kala ah adoo dhaawac lixdeeda lixaad kala dhantaaleyihiin ayaa dalkaaga Soomaaliya lagu soo celinaya adduun waxa halkaab ma meel la isku dilaa meeshaas muuqaalkaas waa idin sii deyn lahaa laakiin shuruucda iyo sharciga ayaanba ogolaanin muuqaalka in soo gaaro waayo dadka sida naftooda halista u gelinayaan dabaq isaga soo tuurayaan ayaa waxay tahay wax aan la qaadan karin oo sidaas may South Africa dahab iyo lul u tahay imise dhalinyaro Soomaali ayaa inooga maqan haddaba dadka dabaq iska soo wada tuuraya ma Soomaali ba ilaa hadda lama yaqaan laakiin waa dad sharci la'aan dalka ku jooga Soomaalina qayb iyo ka dadka sharci la'aanta ku jooga ilaahay hay nooga badbaadiyo wiilasheena iyo gabdhaheena kuwa da'da yar iyo kuwa da'da weyn ee halkan ku nool ilaahay ha ku magan geliyo si nabadgeliyaan ilaahay dib ugu soo celiyo dalkooda inta halka ku nafweydana ilaahay ha u naxariisto halka ayaan ku sameeyay guud ahaan muuqaalada ku talagala maanta desta boqoshada gooraysa mar kale si aad muuqaaladeena xiga aad u daawataan update-ka fadlan waxa ugu horeysa inaan ugu soo biirto ugu horeyn channelka subscribe saar sidoo kale muuqaalka noo la garay oo share garay si guud ahaan muuqaalka inuu gaaro saaxiibo adigu kale qalbi wanaagsan muuqaalkan mid la mid ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.